xogayaha maaliyadda xisbiga wadani Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa maanta soo gaaray magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxa xogayaha soo dhaweeyay mas'uuliyiinta xisbiga wadani ee gobolka Sool taageerayaasha xisbigaasi waxa uu xariga ka jaray tiro xafiisyo oo laga furay xaafadaha kala duwan ee magaalada Laascaanood soo dhawow Cabdirasaaq xogayaha maaliyadda xisbiga wadani magaaladaadi iyo gobolkaaga iyo deegaankaaga ku soo dhawow aad iyo aad baa gobolkuna u nabdoon yahay taageeraduna waa 100% insha Allah bil kadibna waxaynu ku damaashaadi doonaa halkan aynu hadir taaganahay inagoo madaxweyne iyo dawlad oo wadanaya insha Allah soo dhawow maanta waxaan soo dhaweynay xogayaha xisbiga maaliyadda ee xisbiga wadani oo safar shaqo inuu yimi muddo ku maqnaa Hargeysa waxaan leeyahay soo dhawow xogaye xaaladda gobolka aad u fiican dadweynuhu oo isbedel u baahan xisbiga wadani u baahan maanta halka waxaan ku soo dhaweynaynaa xogayaha maaliyadda xisbiga wadani oo socdaal shaqo ku yimid oo rasmi ah gobolka Sool xaruntiisa Laascaanood waad ogtihiin waxa insha Allah dhaqso bilaaban doona ololihii campaign-ka waa hadii aan keebleeyahay arrimaha xisbiga insha Allah billahi kariim taageerayaasha iyo hadii alla ku ruuyahay odayaasha iyo hadii alla ku ruuyahay madaxda kale halka ku soo dhaweysay waxaan soo dhaweyntaa tahay insha Allah billahi kariim in aanu xisbiga arrimihiisa la dadargeliyo xogayahana la soo dhaweeyo xogayaha maaliyadda xisbiga wadani Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa uga mahad celiyay mas'uuliyiinta xisbiga wadani sida wanaagsan ay u soo dhaweeyeen waxa uu sheegay waa u mahadnaqayaa dadweynaha faraha badan ee taageerayaasha xisbigeena soo dhaweeyay aad baan ugu mahadnaqaynaa wuxuuna ahaa safarkii caadiga ah ee awal baan ku iman jiray gobolka sidaad ogtihiin waxa bilaabmaysa oo 12 bisha bilaabmaysa campaign-kii baa bilaabmi doona marka si aan howlaha xisbiga u dardargelino uguna diyaar garowno maalmaha soo socda ee campaign-ka ayaan gobolka u nimid hadii Ilaahay idimo insha Allah taala inta doorashada ka harsanna halkan gobolka joogi doona aniga iyo raggi kale ee madaxda ahaa ee gobolka u dhashay oo iyaguna iga daba iman doona si aanu markaa u wada tashano dadweynihii madaxdii gobolka hawshii xisbigana aan u dardargelino intaas oo socodkaygu ahaa oo mahadnaqaya dhammaan dadkana soo dhaweeyay Mukhtaar Cabdi Jaamac wararka warbaahinta SBC Laascaanood.